السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقايا قيمة مضن ميلو بجوكتا أن السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته سيدا هالكان وجودان قبدان وحي أهد قبدا مغنيد وشل الواي وقبر كلاس كتضوات إيكا أخست اسكول برايمري هالكاس إيو إسلي مغالة نيروبي سيدا أكسنتي مالمها وحا صوبدنا هايا قبدها لأفتوبا قبدان أهد قبر شل لأفتوبي مرة وقت يهي هالكاس عوصو حنيمو أيا دبلو هلي هدو هدي marka uu riso halkan soo booqdayan keenan waxaan ka codsanayaa in aad video like saarta subscribe dhaxtalana si wadaagta asxaabta meel walba joogan halkan waxaan kugu soo gudbin doonaa xog sir iyo gabadhan sida loo soo arkay iyo familkeeda war laga qaaday tan waxaan soo gaaray dhismaha ay isli ka degan yihiin reerka gabadha yar ee Hiba Faarax waxa ay suura gashay in aan la kulmo Mustafa Abdisalaan oo ah adeerka Hiba Faarax waxana wax ka weydiiyay xaaladda haatan gabadha iyo sida lagu soo helay gabadha luntay adigu maxaad u tahay adeerkeedana goorma ayay ugu dambeysay gabadha waxaa noogu dambeysay saakay sigis 40 meelahaas markay ahayd iskuul loo diray waayahay iskuulka ma kaligeed baa aaday mise qof geeya ama wehliya ayaa la socday ma kaligeed ahayd adigu ilaa 10 markay ahayd meelahaas AM waxaan soo wacay macallimiintii iskuulka waxay dhaheen gabadha iskuulka uma goyn jirin marka maxaa jira maxaa ku dhacay markaasna waana marka gabadha inay maqan tahay waayahay ugu dambeyn marka sidee lagu helay gabadha waxaa la helay adigu mar hadda laga joogo hal saac adigu around 8:30 meelahaas iyo 9 meelahaas inta u dhaxaysay ilaa hadda warka si fiican uma kala cadda laakiin sida la sheegay maamo Soomaali ah ayaa la soo wacay waxa lagu yiri gabar Soomaali oo xanuunsan oo wax ku dhaceen ayaan haynaa ayadii baa marka la soo wargelisay sidaas aan gabadhii soo helay waayahay marka la soo helayay ma dhaawacyo jirdilay waxba ka muuqday baadigeeda dhaawacyo badan kama muuqdaan laakiin sida aan u maleynayno jug xun baa soo gaartay marka hadda isbitaalka asxaabay sida halkan ugu joodaanba gabadha Hibo nabad ay ku soo noqotay sida wiilka adeerkeedu sheegahayo jaraaxa yar ama dhibaatooyin yar oo jirkeeda ayaa soo gaaray iminkana waxaa loo taxaabay istaalka sifa la ogaado caafimaadkeeda guud sida ogsoontihiin maalmahan waxaa soo badanahaya gabdhaha Soomaali ee la afduubayo sida ogsoontihiin arintaas waa arin nagu cusub hadii aan ahna Soomaalida degta wadanka Kenya gaar ahaan North Eastern iyo Isli Nairobi sida ogsoontihiinba arintan waa arin nagu cusub waxaana ku boorinayna madaxda Soomaali ee ku nool wadanka Kenya in ay arintan cambaarayaan ay ka hortagaan tilaabo culus ka qaadaan dadka falka xun ku haya gabdhaha Soomaaliyeed maalin kasta u qaadan karno in la jarjaro ama la dilo ama lagu oysiiyo hooyo Soomaaliyeed oo gabadheeda halkaas lagu jarjarayo maalin kasta fadlan in aan ku kulmi doono video kale oo xiiso leh waxaan ka codsanaa in aad video like saarta wixii war soo kordhana waa in la soo wadaagi doona insha Allah